للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu u ballansaneen caawa oo bishu tahay 6 bisha 2023 kuna aadan 22 bisha shanaad sanadka 1445 ee hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam xalqadii 16aad ee barnaamijka fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun su'aalaha dadweynaha uga jawaabo sheekhana fadiilatu sheekh maxamed cabdi umal sheekhana su-aasha u horeysa barnaamijka caawa ahna su-aasha 241 saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekha waxaan weydiinayaa walaalkay ayaa dhintay waxaana lagu lahaa dayn wiil kale oo walaalkay ah baan lacag u hayay wiilkii walaalkay ahaa baa yidhi lacagtii aad ii haysay daynta looga bixiyo wiilkii dhintay wiilka dhintayna wuxuu lahaa hanti shaqaysa waana la dhaxlay hantidii wiilka lacagta bixiyay wuxuu yidhi lacagtii aan bixiyey dayn ma ahayn ha la isiiyo waalidkiina waxay leeyihiin ninka asagaa lacagta bixiyey daynna ma ahayn maxaa xal ah sheekh بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله اللهم وفقنا لما تحب وترضى su-aasha jawaabteedu waxa weeye ninka wax baxsaday ee meydka daynta lagu lahaa ka bixiyey hadduu ku bixiyey niyad ah ixsaan iyo tabaruc iyo samafal hadduu niyadaa ku bixiyey wax niyadaa lagu bixiyey ku noqosho ma laha waxuu ruuxu sadaqaysto laguma laabto nabigeenna wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam laysa lana mathalu saw alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u huma yacuudu fii qay'ihi yacni mithaal iyo tusaale xun ma lihin haddaan muslimiinta nahay ruuxa intuu wax sadaqaysto haddana sadaqadiisii hibadiisa ku noqonaya waa sidii ey mantagay oo haddana mantagiisii dib u cunay ayuu la mid yahay marka haddii uu niyad ah meydka ka bixi daynta uu u bixiyeyna sadaqay u tahay oo kuma noqon karo hadduu u bixiyey niyad ah inuu meydka daymiyo oo daynta meydka uu siiyey uu ka dhigay sidii dayn meydka uu ku leeyahay oo kalena ayaduna sax maaha oo meyd wax lama daymiyo meydka sidiisaba dimmadiisu wax ma qaadi karto dayn ma qaadi karto sidaas daraaddeed laba gooraba xoolaha uu bixiyey waa xoolo ka tegey hadduu niyada iska halleeyana meel cidlay kaga dhaceen hadduu niyada hagaajistana waa sadaqo uu baxsaday laakiin dayn uu meyd ka guday oo isagu uu iskii uga guday cid kale kuma laha waalidna kuma laha dadkii dhaxalka lahaana kuma laha isagaa baxsaday sadaqay u tahay yuusan niyada iska hadlayn wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh allah ku barakeeyo su-aasha 242 sheekh waxaan joogaa qurbaha ninbaa i guursaday waxaan u dhalay 3 ilmood ninkaas kama helo reernimo dhan kastoo ay tahay guriga marka uu yimaado waxa uu seexdaa qol kale biil kama helo dhaqasho kalena kama helo waxaan tagay maxkamadda dalka waxay dhaheen maadaama aad muslimiin tihiin idima kala furi karno reerkoodiina waxay dhaheen haddaad rabtid inuu ku furo ilmaha ku wareeji ninka waxaan ka baqayaa haddaan ilmaha wareejiyo inay gaalo raacaan waayo nin mas-uuliyaddooda qaadi kara maahan
isaguna naag kale ayuu guursaday anna madax furasho ayuu warqaddii iiga haystaa sheekh maxaa xal ah labada dhinac in la wada dhagaysto mooyaane hal dhinac hadalkiisa wax laguma dhiso laguma jawaabo maxaa yeelay ruuxu sida qaalibka bini aadamku siday isaga la tahay ama siduu wax u rabo wax u sheegaa inuu gardaran yahay oo khaldan yahayna waa suurtagal saas daraaddeed waxyaalaha la isku haysto waxaa la geeyaa maxkamad iyo qadaa xaqiijiya kadibna ka go'aan gaadha taa waa sida asalka ah laakiin ka mas'ale ahaan si caam ah haddaan uga jawaabno haddii haweenayda la qabo ee xaaska ah xaggeeda haddii ay ka socoto sababta kale tegitaanku oo iyadu dalbanayso hallay furo ama ninka xuquuqdiisii ay gudan weydo sidaasi marka furitaanku uu ku imaanayo markaasi ninku wuu ku xidhi karaa inuu yidhaahdo madax furasho samee oo xuquuqdaada ka tanaasul ama dalqadihii wax dhaafso waana masalada shareecada loo yaqaano khuluca loo yaqaano waa qur-aankuna tilmaamay nabigeennuna sal alla alay wasalam uu xukumay wey haddiise dhibku uu ka socdo xagga ninka oo xuquuqdii haweenayda uusan gudanaynin isagoo dulminaya haddana inuu yidhaahdo waa ku furayaaye madax furasho samee oo xoolo bixi ama xuquuqdaada ka tanaasul dhibkuna isaga ka socdo taa iyadaa sax maaha halkaa marka waxay imaanaysaa aayaadka rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala dumarka waxaad siiseen waxba ha ka qaadanina wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا marka waa dulmi iyo xadgudub waay haddii aadan xuquuqdeeda gudan karaynin oo siin karaynin laba mid baa kula gudwan faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan inaad dumarka si wanaagsan u haysataan oo xuquuqdooda gudataan iyo haddaydan yeelaynin inaad si wanaagsan isaga sii daysaan laakiin inaad haysato xuquuqdeediina aadan gudanin isla markaana aada madax furasho samee tiraahdo xuquuqdaada ka tanaasul ama xaqii ay u lahayd xanaanada carruurta ha noqoto ama xoolo ha noqoto ka tanaasul inaad tiraahdo adoo daalim ah oo haddana ka gardaran arrinkaasi waa khalad weeye mana bannaana meesha khulucu galana halkaa ma aha khulucu wuxuu galaa markay haweenaydu iyadu ay xaggeeda ka socoto yacni diidada iyo doonitaanka furitaanku markuu iyada ka socdo markaasaa la yidhaahdaa aduu kaa socdaaye wax dhaafso oo madax furasho samee wallahu aclam jasaaka allahu khayran sheekh allah ku barakeeyo su-aasha 243aad sheekh haweenay meher khudba sira ah uur ku qaaday oo kadib guur caadi ah loo dhigayo mar kale mayaa la meherinayaa mise kii hore ayaa ku filan guurka oo khudba sirada ah waa guur weli la'aan ah waana guur qarsoon guurkuna hadduu weli la'aan yahay waa guur baatil ah faasid waxba kama jiro nabigeenna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam xadiidka caaisha ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuha baatil haweenay kastoo guursato weli la'aan guurkeedu waxba kama jiro bu rasuulku sal alla alay wasalam waliba saddex goor buu ku celiyey fanikaaxuha baatilun baatilun baatil wax jira ma aha wax jira ma aha wax jira ma aha markaas haddana nebigu wuxuu tilmaamay hadduu guurka noocaasee khaldan ugu galmoodo oy isku arkaan falaha almahru bima istaxalla min farjiha buu nebi sal alla alay wasalam meherkii bay leedahay bannaysiga uu xubinkeeda bannaystay darteed bay meherkii ku yeelanaysa kadibna nikaaxaasi wax jira maaha nikaax waxaa la rabaa saxda ah in gabadha weligeeda laga guursado oon lalana fakanin oon lala tegin lalana dhuumanin haddii nikaaxu si khaldan marka u dhaco
oo noqoto hal la saxo waa in nikaax cusub la nikaaxiyo waa in guur cusub la guuriyo ehelkeedii la weydiisto ayagu bixiyaan si sax loo guuriyo guur cusub waxa iimaanaya masaladu haday tahay meherkii ma meher cusub baa loo magacaabayaa haddii ay galma dhacday oo meherkii hore ee khaladka ahaa ama guurkii hore khaladka ahaa loogu galmooday haweeneyda meherkii halka ka laazimay way yeelanay haddii mar labaad in la guuriyo guur sax ay noqotona guurka sax ana meher sax meher kale ayaa loo magacaabaya laana aqdigu iyo guurku haba khaldanaado laakiin haddii haweeneyda lagu arko xubinkeeda la xalaashaday ee la arkay ee loo galmooday buu meherka hore ay ku yeelanaysaa kan dambe haddii laga maarmi waayana meher cusub baa loo magacaabaya oo meherka waa la saxaya wallahu a'lam